Dalka Iran waa dal leh taariikh dadkiisuna ay sheegtaan inay yihiin Islaam, laakiin aan ku kala duwannahay caqiidada iyo aadaanka. Dad diin ka dhigtay aflagaadeynta saxaabadii rasuulka, qarniyo ka horna ahaa dad Sunni Muslim ah. أشهد أن عليا ولي الله. Dowlad Sunni ahayd sidee looga dhigay mid Shiica Isna Cashariya ah? Iran waxay ahayd dowlad Sunni ah oo soo saartay culimada ugu caansan taariikhda muslimiinta sida Al-Bukhari, Ibn Sina iyo Abi Xaniifa, ku leh maamuus iyo saameyn kana tegay dhaxal diimeed oo ilaa iyo maanta jiilal badan oo Islaam ah ka faa'iidaysteen. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Qarniyo ka hor dhulka maanta loo yaqaano Iran saldhiggan u ah Shiicada inuu ahaan jiray isaga iyo dalalka ku hareeraysan dhul ay ka taliso boqortooyadii Faris oo ahayd xilligeedii mid ka mid ah boqortooyooyinkii ugu awoodda badnaa adduunka. Kadib markii uu soo baxay Islaamku, waxay boqortooyadii Faris ka mid noqotay dhulalkii uu gaaray Islaamku. Laakiin wuxuu noqday dhulkii Faris kadib 800 oo sano uu ahaa dhul Islaam ah, haystana madhabka Sunniga ah, mid isku bedela madal gaashaan u noqota Shiicada. Haddaba, siduu madhabka Shiiciga ugu faafay Iran? Dad Sunniyiin ahaa siday u noqdeen Shiico? Iran waxay ahayd dowlad Sunni ah, weliba soo saartay culimadii ugu caansaneyd taariikhda muslimiinta. Inta badan xukunka Iran dadka dega dhulkaasi wuxuu gacanta ugu jiray qowmiyadda Turkumaanka ilaa uu imaaday nin lagu magacaabo Ismaaciil as-Safawi. Badanaa marka laga hadlayo madhabka Shiiciga ah, waxaa loo kala qaadaa laba qaybood: wixii ka horeeyay Ismaaciil as-Safawi iyo wixii ka dambeeyay. Ninkani ka hor Shiicada way jireen, laakiin ma ahayn sida ay maanta yihiin. Ismaaciil as-Safawi waxa uu sheegay inuu ku riyooday Mahdiga, una sheegay faafinta madhabka Shiiciga. Xilligaasi Iran dhanka xukunka fowda ayaa ka jirtay, aad ayuuna u jilicsanaa, waana arrinka uu ka faa'iidaystay Ismaaciil as-Safawi. Wuxuuna dagaalkiisa sirgelinta rayadiisa uu sheegay ku bilaabay rag aanan badnayn, meeshii uu qabsadana si qasab ah ayuu dadka ku gelin jiray madhabkaas cusub ee uu wato, cidii diidana waa uu dili jiray. Taariikhdaas wixii ka dambeeyay Iran ilaa iyo maanta waxay noqotay dowlad muslimka kala dhib ku haysa, laga soo bilaabo xilligii Cusmaaniyiinta ilaa iyo maanta. Xilli ay Cusmaaniyiinta hareereeyeen Vienna ayay u soo dabamareen Safawiyiintii dhulkii dowladdii Cusmaaniyiinta, waxayna qabsadeen Ciraaq iyo qaybo ka mid ah Azerbaijan. Markii Ismaaciil as-Safawi uu qabsaday inta badan Iran, wuxuu afka saaray Baghdad 1508 ayuuna qabsaday Baghdad, wuxuuna daandaansi ku bilaabay xuduudkii dowladdii Cusmaaniyiinta. Wuxuuna Saliim al-Awwal ku qasbanaaday inuu la dagaalo Safawiyiinta, wuxuuna ku kiciyay ciidan gaaraya 6,000 caasimadda Safawiyiinta ee Tabriz, waxayna ciidankii Cusmaaniyiinta awood yeesheen inay qabsadaan caasimadii Safawiyiinta. Intaasi kadib, Cusmaaniyiinta waxay ka xoreeyeen Baghdad, waxayna lugta sii mariyeen dowladdii Mamaaligta. 1925 Iran waxaa ka dhacay afgembi ay sameeyeen qoyska reer Pahlavi. Xukunka qoyskan reer Pahlavi waxa uu jiray ilaa 1979. wuxuu ahaa mid aan ku dhisnaan qaab madhab ah, boqortooyo caadi ah ayuu ahaa, waxaana ugu dambeeyay Maxamed Rida Pahlavi. Waxyaabaha qoyskani uu Iran kusoo kordhiyay waxaa ka mid ah magacani Iran ma jirin wixii ka horeeyay 1935. Beershia ama Faris ayaa loo yaqaanay. Xukunkii Shaah Iran laga soo bilaabo 1960 ilaa 1979 wuxuu ku jiray xaalad aad u xun. Qallaasaha iyo mucaaradka ayaa aad ugu batay ilaa uu dhaco 1979, waxaana riday waxa loo yaqaano kacdoonka Islaamiga ah ee Iran, waxaana Iran ka dhashay talis kacdoon Shiico ah, dushana u ritay faafinta madhabkaas. Hazrat Sahib al-Zaman ajjalallahu ta'ala farajah
waxay Iiraan dagaal 8 sano socday la gashay Ciraaqdii uu hogaaminayay Saddam Hussein, wuxuuna u ahaa dagaalka labada dalba halaag guud ay isku waabiyeen. Tirada dadka Iiraan waxay gaaraysaa 83 milyan oo qof. Maanta Iiraan waxay wajahaysaa xaalad adag dhinaca gudaheeda, dhaqaale burbur, qalaasaha, dhibaatada ka haysata barnaamijka nukliyeerka, cunaqabataynada lagu soo rogay, dibadbaxyo aad u badan ayaa ka dhacay sanadihii u dambeeyay Iiraan. Iiraan waa dowlad leh maanta ciidan xooggan, waxay kaloo awood militari ku leedahay dowlado badan oo Carab ah dhexdooda, sida ururka Xamaas oo ka dagaalama Gaza, Falastiin, Xuutiyiinta Yemen ka dagaalama, Ciraaq iyo Suuriya oo ay Shiico hubeysan ku dhex leedahay, iyo ururka Xisbullah oo Lubnaan u jooga. kulanti dambe oo xiiso leh daawadayaal. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا